magacayga Khadar Maxamed waxaan joognaa maanta wasaaradda deegaanka waxaan dumaynaa mawduuc ku saabsan dhirta. xaalufinta dhirtu waxay noo leedahay dhibaato aad u fara badan. dhibaatooyinka ay dhirtu xaalufinteedu inoo leedahay waxaa ka mid ah dhirtu waxay u tahay bay u tahay dhulkan aynu ku noolahay. haddii la baabi'iyo kasakow noloshii bini aadamkii dhaawac weyn u geysanayso, deegaankii jiritaankiisiina waxay u tahay lafdhabar. haddii dhir la waayo deegaankaynu ku noolayna dhaawac weyn baa gaadhaya, waana la waayayaa weeye jawaabta kooban markaan hoos loo sii tafsiirin. sidaynu ognahay gudoomiye marka imka wadooyinka aynu wadno wadooyinkan aan dhisano dawga cad wadooyinka marka la wado waxa la isticmaalaa dhirtii lafteedii oo marka daamurkii la dhalaalinayo waxa la adeegsanayaa dhirtii. waatay muhiimadda ma siisan si aad u soo saari lahaydeen wax lagu bedelo dhirtan la isticmaalayo il kale oo tamareed. mashruucan hadda lagu dayactirayo wadada Berbera ilaa Xamaas waxaa la isticmaalaa maxaa la yiraahdaa tamaro fara badan oo ay lagaga maarmayo ama lagu yareyn karo, laakiin bilow weeye wax badanna way noo dhimay. dhirtu waa nolosheena hala dhowro.